magaalada Muqdisho ee dadka waaweyn qaarkood ka sheekeeyaan anigu ma arag mana suuraysan karo. Waxay ila tahay aniga sidaan ugu imi inay weligeed ahayd magaalo burbursan, xaafadaha qaarkood aan la gelin, xabaduhu ay joogto tahay, isbitaalna aan lahayn, wadooyinka bacaadka buuxa, qashinkuna meel walba yaalo. Iskuulada ciyaalku tagaan waa lacag. Ma fahmi karo anigu inuu jiri jiray iskuul aan lacag ahayn. Ilaahay mahadiis, iskuulna waa la igeeyay. Nasiib wanaagsan ayaan arrinkaa u yeeshay. Waayo walaalahay badankood iyagoo 20 ka badan nasiibkaas ma helin. Qur'aankana walaalkay ayaa i baray oo kor ayaan ka qabtay kitaabka Qur'aanka 114 suuradood. Ilaahay mahadiis, sidoo kalena waxaan ku abaabay inaan masaajidka ku xirmo anigoo yar. Dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah oo xaafada deganayd wadooyin kala duwan ayay qaadeen, haba ugu badnaadeen inay maleeshiyaad u noqdaan kooxaha dagaalama. Dagaaladii socday waxaan ka qayb ahaa oo kaliya kuwii lagaga hortagayay gumeysigii Itoobiya ee dalka ku soo duulay dabayaaqadii 2006. Waqtiyadaas ayaan anigu dhameeyay dugsiga sare. Waxaan isku dayay inaan helo deeq waxbarasho, laakiin iima suurtagelin. Ehelkayguna ma bixin karin mid lacaga. Bartamihii sanadkii 2007 ayaan u soo boqolay dalka Suudaan anigoo waxbarasho raadinaya. Haddaan imi magaalada Khartoum, waxaan muddo yar kadib helay jaamacad ku taal magaalada Qadaariif. Laakiin waxaa aad igu adkaaday noloshii meeshaan ka soo saari lahaa. Ehel dibadda ii jira oo xagga masaariifta nolosha iyo waxbarashadaba iga soo kaalmaysanayana ma lahayn. Qoyskaygu wuxuu wada jiraa dalka gudihiisa. Dhowr bilood ayaan la ciirsanaa noloshii anigoo jaamacadda ku jira. Markii dambana waan wadi kari waayay. Waa tahay saaxiibada aynu hawada ku saaxiibnayo.